أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يا مهسن ميل والبا أجوكتين وحين الله يهي بشارة بالرمضان. إلهي سبحانه وتعالى وحنو أبوري إنا إساق كريجي سعابدنا. إلهي قرآن كيسا وحكيري جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما سمين وما أبور إنس يجن لبضبا كليا وحانو أبوري إن الله سبحانه وتعالى وإساق نتيسة الماما يأويري إن أنيغا لإعابده ما هاني وحكالو ما أبوري. سيداسي أي أنبياء إلهي سبحانه وتعالى أنا أورنجرين نبي والبمركو إلهي صادر دتك سؤال الله الضايا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلهي سبحانه وتعالى وحنو أبوري إن إساق كريا عابدنا. عبادة ذاسي الله سبحانه وتعالى ونو أبوري قفك أوقته إيادا أيوكو غاري كراه إنو الدنيا انت جوغنا عزي شرف وهلا haddii uu ka tagana iyada ayaa waxay u keeni kartaa liidnaan iyo inuu dadka u hoosmaro. iyadoo sida ay jirto haddana Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa uu u tanwiiciyay cibaadada si aysan u daalin oo hal namad kaliya ama hal shay kaliya aysan dul taagnaan mar walba, laakiin waxa loo sameeyay cibaadada waa loo tanwiiciyay. Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu sameeyay cibaado qofka laga rabo maalin walba inuu si joogto ah ula yimaado. sida salaada oo kale saacadba saacadaha ka dambeeya waa dukanaysaa, habeenkii ayaa dukanaysaa, maalintii ayaa dhowr jeer dukanaysaa, mar walba waxaa cusboonaysiinaysaa calaaqada iyo xiriirka aad la leedahay Allah subhanahu wa ta'ala. waxaa jiro cibaadooyinkaas cibaado kale oo Allah subhanahu wa ta'ala saacad walba xilli walba niyadaada iyo qalbigaaga inaad ku yeesho laga doonayo. waa مثلا cibaadaadka عقيدة، مثلا توحيدك كلمة لا إله إلا الله أو قفك مرنا بكما تجيسو مر والبنا ولا جربها إنه عرب كيسكو هاي عبادينك وحكم ده أسبوعي مال كون له شرعية سيد قطبة أو كله مال مها كله أردن وحلقة يابا مساجد كحافظة أنا كنت كتير، لكن مركز لقى أسبوع قميصة مالك جمعها ضدك أردن حافظة دجن مسجد وين يسوي إيمانيان هالكاسي أي إلهي سبحانه وتعالى كعابديان oo qodba looga akhrinaya. cibaadooyinka waxa kamid ah walaalayaal oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jiday sida zakada oo kale oo sanadkii hal mar qofka laga rabo. waxa la mid ah bisha qiimaha badan oo aadka u wanaagsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay adoomada in ay ka dhigtaan meel yaani dhunuubtooda lagu dhaafo oo ay ka dhigtaan meel ay umrigooda ku cusboonaysiiyaan oo ay refresh ku qaataan. bishaasi waxa weeye شهر الله المبارك شهر رمضان. وبشهر رمضان بركيسن نوسو آدن قف والبو مسلمة إلهي سبحانه وتعالى جعل قف والبو مسلمة وعبادة جعل قف والبو قلب جيسة يلابتيسة أفرنته عبادة إلهي سبحانه وتعالى يعني درريه وإلهي سبحانه وتعالى وكبريه إن بشهر رمضان إلهي أقرش سبحانه وتعالى. ولا ليال waxaan ugu soo wajahan bishaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyay.
bishaasi ilaahay subxaana watacaala qiimaha badan uu u yeelay, bishaasi ilaahay uu ka fadilay bilaha kale, bishaasi nebiga uu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam bil ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa dembigooda u dhaafo. bishaasi waxaan dhihi karnaa waa maxado ama waa boosteejo ama waa istaan meel uu qofka yacni ku nasto oo culayskii iyo dunuubtii iyo hiqalkii badnaa ee saarnaa uu isaga bedelo oo u wareegsado sanad kale oo cusub in ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa uu jeesto. haddaba mar haddii bishii ramadaan nagu soo wajahan tahay, qof kasta oo muslim waa inuu isweydiiyaa kayfa nastaqbilu ramadaan, seen u soo dhoweynaa bishaasi ramadaan ee barakaysan ee qiimaha badan. waxaad og tahay qofka bini aadamka haddii la yidhaahdo waxaa kugu soo wajahan oo kuu soo socdo yacni qof qiimo agtaada ka leh oo marti ku ah, qof walba waxaa laga yaabaa inuu yani daaqadiis meesha ugu dambaysa inuu sameeyo. qolkii aad dejin lahayd inaad diyaarisid, gogoshii aad u dhigi lahayd, raashiinkii uu cuni lahaa, meeshii uu seexan lahaa, yacni qofkaasi sida u maamuusi lahayd. bal ka waran bil markay timaado adiga naxariis kuu ah oo adiga kuu sababayso dembi dhaaf in ilaahay subxaana watacaala uu ku siiyo, oo adiga kuu sababayso culayskii dunuubtii ku haysto o dhan inaad isaga reebtid. bishaasi waxay mudan tahay in si wanaagsan aan usoo dhoweyno walaalayaal. maxaana laka rabaa marka? waxaana laka rabaa walaalayaal bisha ramadaan waxa ugu horeeya aan ku qaabilayno waxaa la rabaa kow in ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada aan u khalisno, al-ikhlaas, niyad saafi ah inaad la timaadid. arrinkaasi waa muhiim. nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam inama alacmaalu binniyaat. ilaahay subxaana nabigu wuxuu leeyahay camalka waa niyada. in qof walbo annaga naga mid ah uu niyeysto bishaasi ramadaan inuu ka faa'iidaysto. ilaahay subxaana watacaalana niyadaada ayuu ku eegayaa. in allaha laa yanduru, ilaahay ma eego subxaana watacaala suwartiina iyo muuqaaladiina ma eego, quruxdiina ma eego. wuxuu laakiin ilaahay subxaana watacaala u fiiriyaa quluubtiina iyo acmaasha aad qabanaysaan. qalbigaaga marka waa in aad ka timaado niyad saadiq ah oo run ah in bisha ramadaan aad ka faa'iidaysanayso inay kaa go'naato. haadihi alcaziima wa haadihi niya waxay kaa dhigaysaa ama kuu suuro gelinaysaa bisha ramadaan in aad si fiican u qaabishid oo soo dhawaysid. laakiin hadday bisha ramadaan kugu timaado adigoo iska ilowsan oo gaafil ah oo warba aan ka haynin, maxaa ka faa'iidaysanaysaa? yacni waaba maqan tahay, maskaxdaada ma joogto. sida dadka qaarkood oo kale bishiioo taagan inay arkaan oo madaxa ay qabsadaan oo ramadaankiyaa la gaaray oo kii kalaaba hadda dhawaaye oo goorma midkii kale la gaaray oo adduunyada surco badana, waxaasoo kale laga yaabo dadka qaar inay dhahaan. baynamaa dadka mu'miniinta ay leeyihiin alla ramadaankii waa nugu dheeraaday, bisha ramadaan maxaa ku dhacay, shacbaanku dhirir badanaa, maxaa yeele waxay og yihiin wanaagii ay ka helayaan. waxaa la rabaa marka inaan la nimaadno niyad saadiqa ah, qalbi furan, ilaahay subxaanahu watacaala daacadnimo aan u muujino, ikhlaasu niya ayaa la iska rabaa walaalayaal. taasi marka waxay naga saacidaysaa bisha ramadaan si wanaagsan inaan u gudanno, nafaxaadkeeda iyo khayrkeedana inaan helno ayaa naga saacidaysaa. kaasi qodobka koowaad waaye. qodobka labaad waxaa weeye attawbata tawba, in ilaahay subxaanahu watacaala aan u laabano. maxaa yeelay waxaa la og yahay qofka bini aadamka ah dunuubta waxay u sababtaa in camal saalix uusan qabsanin. dunuubta waxay kuu sababaysaa mar walba waa caqabo ayay kugu noqonaysaa oo kaa hortaagan camalka saalixa ah. qofka markii dunuubtiisa oo yar tahay waxaa u sahlan camalka saalixa inuu qabto. laakiin markay dunuubta badato, kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun, qalbigaa madow ka fuulayo, markaasaa waxaa laga yaabaa in uusan ba fursad u helin bisha ramadaan inuu ka faa'iidaysto. laakiin markaa ilaahay u tooba keentid adoo qalbigaaga nadiif yahay oo adigood muxuu ahaye daacad ah oo ikhlaas la timid, ilaahay u tooba keentay adoo fudud oo nadiif ah ayaa bisha ramadaan galaysaa. towbadana waad ogtihiin ilaahay subxaanahu watacaala wuu amray dadka oo dhan inay qofka u yidhaahdo war anigu dembi aan gala maba xasuustee ma aha. dadka oo dhan baa ilaahay amray watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. mu'miniin yani waxaa ilaahay leeyahay dhammaantiin ilaahay u tooba keena, ilaahay u noqda. towbada markaasaa loo baahan yahay, waa waajib ilaahay subxaanahu watacaala u waajib yeelay. yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa. maxaa yeelay towbada iyadaa wanaag uu ku jiraa, iyadaa laga yaabaa in ilaahay subxaana watacaala uu kugu anfaco oo bisha ramadaan uu ku gaarsiiyo si fiican uga faa'iidaysatid. haddii kalena bisha ramadaan inaad gaartid adoo dunuubtii ku cuslaysay oo dhaqaaqila, soonkii uu ku dhibo, qiraa'atul qur'aankii ay ku dhibto, salaatu taraawiixdii ay ku dhibto, sadaqadii ay ku dhibto,
bish ramadaan ay ka dhamaato adoon waxba ka faa'iidin arrinkaas aad ayuu qatar u yahay qof walba marka waxa la rabaa inuu isaga ilaahay u tooba keeno subhanahu wa ta'ala oo kaliya qol mugdi ama agashid meel mugdi ah oo adiga ilaahay kaliya asmaqlaysan ina ilaahay u tooba keento subhanahu wa ta'ala oo wixii kale dhanba aad faraha kala baxdid marka toobadaasina waa qodobka labaad oo muhiimka ah qof walba inuu ku dadaalo ilaahay subhanahu wa ta'ala na uu weydiisto waxa kale laga maarmaan ah bish ramadaan ka hor inaan ku dadaalno الدعاء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه إن إلهي سبحانه وتعالى أمبرنا محا إلهي كبرينا اللهم بلغنا رمضان إله بش رمضان نجارسي سبحان الله محا يلا واحد أكتهي إمي سقفات بشي رمضان كي هو رنا لصو صنتي أو أنا ردا ما يسنن ولا ليه dad badan بشي رمضان نلا صومي لكن أين أسورة جلين إن بشي رمضان صوم كذا لما يستان وحاجر dad badan oo bisha ramadaan iyadoo ay u muuqato oo shacbaankii ku jira geeriyooday waxa jiro dad bisha ramadaan soomay nala soo dhameystay laakiin haddar aan joogin waxa dhici karto ramadaanka nagu soo socdo in qaar badan annaga naga mida aysan gaarin laakiin haddii sida aan soo sheegay niyadaada aad soo hagaajisay ilaahay ajirkeedu uu ku siinaya marka ina ilaahay ka barino allahumma ballighna ramadaan ilaahu bisha ramadaan nagaarsi maxaa yeelay ilaahay wax walba waxyaalo badan ka barina ilaahu arsaaqda noo waasic ilaahu awlaad nasi ilaahu xoolo badan nasi ilaahu waxa maanta oo ilaahay ka barina ilaahay inuu ku gaarsiyo mawsim weyn oo cadiim yani xilli dunuubta la dhaafo naxariista ilaahay soo degto yani xilli muxuu ahaay habeenkii laylatul qadarka ku jirto hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku waafajiyo yani kum bilad wixii muxuu ahaay amal aad qama jirtay ka fiican khayru min 1000 shahr إلهي سبحانه وتعالى سديتا يسدح سنة كبدا وحي أهل اللي تلك سبين إلهي وكوسينا سبحانه وتعالى مركب بش رمضان أو لجارة أو إلهي سبحانه وتعالى لجبريه وحوى عمل لقب تكو وفي عن أي كمته مرك إلهي إنا كبر إنه أو قاد مناسب كأولبة حلق الصلاة كذب إلهي إنا كبر يدي حلق قاد محوها هاي إلهي سبحانه وتعالى إسلاده وكأجيب يا سقد لحهوينكي أما حلق قاد محوها هاي aad isleedahay xilligan ilaahay ducadu ka aqbalaya maalinta jimcaha oo kale yani intaas ilaahay ina ka baridid subhanahu wa ta'ala inuu ku gaarsiyo bisha ramadaan dhamaanteen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na gaarsiyo bisha ramadaan waxyaalaha kale oo laga maarmaanka ah bisha ramadaan intaan la gaarin la rabo in aan sii diyaarino qodobkaasina waa qodob muhiim jiddan way waxa la iska rabaa at-takhdiid qorsheyn qofka waxa la rabaa inta bisha ramadaan aan la gaarin in uu baleenkiisa sii sameesto qorshihiisi wal bisha ramadaan waa 30 ama 29 maalmood maalmo yara ka haray hadii bisha ramadaan aan gaaro maxaa ii qorshe ah hadda inaan dejinaa la rabaa oo se u dejinaya hadda waxaan leeyahay bisha ramadaan imisa jeer ayaan rabaa quraanka inaan qatimo مثلا waxaan rabaa bisha ramadaan inaan quraanka qatimo 5 jeer macna ذلك waxa way inaan ku talagalo maalintii inaan luxjis akhriyo ama waxa ay 10 juz waa inaad 10 maalintii waa inaan akhriyo ama maalintii meeqa ay qorshaysan hadaadan hadda saas yeelin sadaqada aan bixinay bisha ramadaan aan ku talagalo waa imisa bisha ramadaan waa inaan afuriyo 100 qofood inaan afuriyo bisha ramadaan soo socoto 20 qof waa inaan afuriyo bisha ramadaan ay soo socoto waa allahumma allah musta'an masaajidka ii dhow ama ugu fiican ee bish yani taraawixda aan ku dukan doonaa waxaas oo dhan waxa laga rabaa qabla ramadaan inay ku qorshaysan yihiin hadii lagu dhaho berri baa safar tahay ama bisha soo socota safar baad maxaa sameynaysaa shaqooyinku waa si kala hagaajinay inta aan maqanahay hebel waxa sii qabto inta aan maqanahay hebelay waxa sii qabato inta aan maqanahay sahla sii yeelo qorshe sameynaysa Soomahan bisha ramadaan waa fursad yar waa 29 ama 30 maalmood qorshahaagi waa inuu ku cadiyaa hadaadan qorshe sameynin waxa arki doontaa bisha ramadaan iyadoo la gaaray adoon waxba qabsanin in ay dhamaato adoon hal marna quraanka khatamin in ay dhamaato adoo taraawiix aan dukanin in ay dhamaato adoo wax sadaqaysata way aysan jirin maxaa yeelay dadka qaar kood waxay ku mashquulaan bisha ramadaan marka la gaaro war bisha ramadaan la gaaray afur hal keenooy dibadaha loo qaylinaya lacagti biilka la soo badiyay maadaama ramadaan la gaaray waxaas oo dhan waxay yani qayb ka yihiin oo qofku wuxuu ka fikiraya wuxuu cuni lahaa oo bas qorshe kale ma jiro bisha ramadaan biilkeeda la soo kordhiyo lacagihii muxuu ahaa reerka masruufka loo kordhiyo cuntadii la cunay in la sii zaaidiyo arimahaas oo kale aan ka hadli doono insha Allah taala caafimaad ahaan in uu xun yihiin dibdaba aan ka sheegi doono waxaan rabaa markii inaan iraado
التخطيط قرشة وإنا قرشة لهذا وإنا معنا برنامج لهذا رمضان كاجوحي صورا هل درسي أيان كدق دونا موضوع اللي يراهده يوميات الصائم أما قفك الصومن قرشة معلومات كيسة هل مارين أيان كهذا دونا إن شاء الله تبارك وتعالى وحماك النفتي أدر دارمية قرشها ولا جام مارمان وحونا أضب لحد وياهي وحيالها كصابسا بشهر رمضان إن أكفايد ستؤذن وحرب إخواني في الله إن أنكسوا جبيه دردارنك النبي عليه الصلاة والسلام إيا دردارنك إلهي أو فإذا نفتي نبؤله دردارنك هسمحوا ياهي إلهي قرآنك وحكيري ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلهي إنك بغضين إلهي وحي كينيسا عملك بشهر رمضان أقام الله إن إلهي كوف الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أرنكاس وحكينا إن إلهي سبحانه وتعالى وكوف الله محوها ضاعة إن إلهي كوف الله ضاعة إن إلهي كوف الله تقوى وحي كوف الله ليس ضاعة ودكتهن أهل السنة والجماعة وحاكم إذا معتقدات كذا الإيمان يزيد وينقص إيمانك وكرده ونقصامه وحكو كرده بفعل الطاعات وحياله وناكسن الله سماه يكو كرده وينقص بفعل المعاصي وحكو نقصامه إن لا سماه وحيالها حنحن وشرعي خلافسا مركا تقوى أن لازمنه إلهي سبحانه وتعالى أن برنه إلهي سبحانه وتعالى داعيس أن بدنه وحي وحاصل أن قيب كقادنا يان بشهر رمضان إن أن كفى سنه سن نظيف أهنا أصنه إنت أنا بشهر رمضان قارن ضاعات كنا سيبادنا ضاعك لكودي بيسا حدا اسكوسي يعني اسكو لازمي إن أد لازمته مساجدك اسكو واجبيال صلاة أولا حدا اسكو واجبيال واسكو لازمي إن أد جماعة هذا سيبرته صدقاء إن هذا سيبرته قرآن أخرسك إن هذا سيبرته سي رمضان كمركها أوجارتي أضل ليلسن أو محوها هاي سيدي محوها هاي فرس لسيتها وبريئة بيش رمضان قد عمل كاي وجودته محيالي عبادة يدا يا عبادة كلا كودي بيسو هذه لكن هذا أنا وحبك بدنين أو عبادة أذن سمينين هدو دنبه وأتكاني بيش رمضان مركي أجارتيت صدق كاسم الموت إن دحيد واسكت وبريئة وحنو نكوف لنا يا ودكت هاي قفك الربا إنه صعد كبرته أما أرد برته وإنه سوقف كفا مركو هاري إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنينا إنه بيش رمضان نجارسي سبحانه وتعالى وحلينا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين إله بيش رمضان نجارسين إله بيش رمضان نجارسي نجانا أقبل عمل كذا محيالي عملك وحلقة أقبله إنما يتقبل الله من المتقين ذاتك التوصن وإلهي سبحانه وتعالى جدك يسكو توصن وإلهي كليه كبق سبحانه وتعالى عمل كذا الأقبله وحلينا هي إلهي وبيش رمضان نجارسي dadka mu'miniinta oo dhan ilaah subhanahu wa ta'ala bisha ramadan gaarsi iyagoo amni iyo iimaan haysto iyagoo amal saalix ah ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu ahay ugu dhawaanay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha gaarsiyo insha Allah ta'ala darsigeena qaybtiisa koobaad intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-sawab wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh